Alla ifuro fallar bay dishayaynaan fayobaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam aqeerto sharaftana meel kastoo dunida dacaladeeda iyo daafeeda aad ka joogtaan. Ugu horreyntii aan ku salina xabiibkeena suubaneena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. cimri dheer iyo cibaado suuban iyo caafimaad qabaan rabbi raxmaanka idinkaga rajeynaya in uu idinku waariyo meel kastoo aad joogtaan. waa walaashin Xaawo Taako. maanta waxaan noo wadaa qiso cajiib ah oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed. ilaahay ha u naxariisto, way dhimatay. waxa iiga sheekaysay qisadan gabadhii ay ku dhacday, gabaray ayeeyo u tahay oo hooyadeed dhashay. dhammaantood way dhinteen, saddexdaa gabdhoodba, tii ay ku dhacday, tii ay dhashay iyo tii ay sii dhashay oo aniga iiga sheekaysay, dhammaantood way dhinteen. ilaahay ha u naxariisto. waqtiga ay iiga sheekaynayso ma ahayn waqtigan oo hadda aan joogno, mana aanan lahayn YouTube, mar horey ahayd. ilaahay ha u naxariisto. kabacdi bay geeriyootay. marka waxay tiri ayeydii waxay tiri markii awowgay ay isguursadeen, ayeydii iyo awowgay laba gobol oo Soomaalida goboladeeda ka mid ah ayay kasoo kala jeedeen bay tiri. shanta Soomaaliyeed saddexda la goostay oo la kala jarjaray, labadan hartay oo koonfur iyo waqooyi maaha, saddexda kale gobol ka mid ah bay ayeydii kasoo jeeday bay tiri. awowgayna labadan gobol oo hartay midkood buu kasoo jeeday. qabiil ahaana laba qof oo qabiilada kore, qabiilka yacni kore ka wadaagay ahayd bay tiri, oo hasii kala bixin laakiin kor ahaan qabiilada Soomaalidu ay weliba isku tilmaamaan qabiilada waaweyn baan nahay ayay ahaayeen bay tiri. aniga qabiil weyn iyo yaraan imaba kala lahan. qabiil Soomaaliyeed waa qabiil Soomaaliyeed, karaam inay ga wada mudan yihiin. arrinta qabyaalada iyo qabiiladana run ahaantii ma jecli kamana hadlo, laakiin qisada ayaa salka ku hayso oo igu qasbaysa inaan taabto. intaa markay sheekadu maraysa waxay tiri ayeeday waa laga soo guursaday oo goboladaas la goostay mid ka mid ah ayaa laga soo guursaday, waxaana la keenay bay tiri gobolada haray gobol ka mid ah. markii la keenay reemihii bay dadku ahaayeen, xoolo dhaqata la iska haray guuraa. waxaa lala dejiyay oo la degtay reerkii ninka soo guursaday faamilkoodii, oo ay jiraan dumar hore iyada ka horreeyay oo wiilal kale reer ku dhalay ay yacni qabaan, iyo faamilo kale oo reerka ah ay isla degan yihiin deegaankaas. gabadhii markii lasoo guursaday, waa taqaanaa Soomaali iyay tahay baa la bilaabay, ma la hubaa iyay kasoo jeedaa ama reer hebel tahay, iyadoo lagu xaqlinayo qabiilada Soomaalida oo karaamada iyo ciisada iyo sharafta iska leh, oo dadka wanaagsan weliba ku jira, oo beenta iyo aqli darrada lagu yaso, oo wax aan wanaagsaneyn lagu tilmaamo, ayadoo loo xaqlinayo la dhahay ama cidaas tahay ayaa la isweydiiyay tahay iyo ama ka been sheegaysaa cidda sheegatay. si kastaba ha ahaatee, gabadhii arrintii dhibaato ku noqotay, caqdad bay ku beertay, calool xumay dareentay. ehelkeed meesha ma joogo, in adeerkeedna ma joogo, gabaray isla soo koreen ay ariga isla raaci jireen ma joogto. waxa weeye kaligeed bay waxay dhex joogtaa dad aysan garanayn. dadkiina dumarka waad ogtihiin oo sida caadiga dumarku qoftaan gabdhaha reerka uga soo horeeyo wiilasha kale ay qabaan oo ma garanaysa ay habarta iyo odagii isfahmeen. waxaad moodaa midda cusub in xoogaa si geeska loo geliyo oo reerka la iska xijiyo. si kastaba ha ahaatee, gabadhii geeska la wada geliyay oo xoogaa sibaa loo fanquuqay. dumarkii dariska iyo xaafadihii iyo asxaabtii iyo qaraabadii oo dhan hadalku dhegteeda ayuu kusoo dhacayaa. telefoon ay dirsanayso mala oo telefoon ma jirin, gaarigan lagu dhacayo iyo diyaaradahan lagu dhacayana ma aysan jirin. tala ku caddaatay, aad bayna u murugootay, aad bayna caqdad iyo kalsooni darro ugu dhacday. ay bahdilaada loo geysanayo iyo takoorida iyo dumarka ku sheekaysanayo oo nuxnuxda dhegteeda ay kusoo dhacayso bay aad runtii u dhibsatay. haddii ay u dhibsatayna waxa ku dhacday caqdad oo waxay qaaday kalsooni darro ah in ay qof shisheeyo guursaday oo meel fog ka dhacay oo fogaaday oo xuduudaha jaray ay tahay ayay dareentay.
markaasna waxay go'aansatay in ay noloshan ka baxdo oo la furo si ay reerkoodii mar ugu laabato oo ay caradoodii iyo dadkeedii iyo ciiday taqaanay mar labaad ay cagaha u saarto iyo indhahaba. markaa waxay samaysay waxay tirisay tix yar oo dhowr eray ka kooban oo isleeyahay waxba kumaysan dhaafin ee wax walba way ku cabirta way markaa kaga hadlayso dareenkeeda iyo guurku nooca uu yahay. sidaan ognahayba guurka waxaan nirahnaa anagu waa nasiib oo sokeeye iyo shisheeye ma kala lahan, waa qofku Ilaahay ku hagaajiyo ayadoo taasna tilmaamaysa in ay fogaatayna tilmaamaysa bay tixdaan yartaa tirisay. waxay tiri guur waa ayaan iyo aqoon loo abtiriyaaye, guur waa sokeeye anaa sera dhaaf dhigaye, hallay furo fallaar bay dishaye inaan fayoobaado. wow waxay tiri guur waa ayaan iyo aqoon. horta marka hore ayaankiiba kamaysan tegin oo waxay tiri meesha aan Soomaalidu ay ka tiraahdo waa qofku Ilaahay ku hagaajiyo sokeeye ma laha. waxay tiri waa ayaan horta. markii labaadna waxay tiri waa aqoon loo abtiriya oo waa in horta qofka aad guursanaysa uu ku leeyahay in hebel baad. waa ayaan iyo aqoon loo abtiriya waa sokeeye tiri waa inaad in adeerka guursataa iyo cid ku taqaano dee ku garanaysa. anaa seera dhaaf dhigay bay tiri oo xuduudihii ka baxay oo meel fog u tilaabsaday, hallay furo fallaar bay dishay inaan fayoobaado. yacni bal hala iska kay furo mar fallaar baaba igu taagan qof dhaawac ahaan ahay. fallaartu dee bedelka hadeer qoriga iyo xabadii la isticmaalaa waqtigaas la isticmaali jiray fallaarta dadka lagu dili jiray. marka waxay leedahay hallay furo fallaar bay dishay inaan fayoobaado. bal waa caafimaad ayaa la iska kay furo markaan reerkayaga iyo dadkayaga u tagan caafimaadi doonaa. run ahaantii waa xigmad cajiib ah oo aad iyo aad bay maaragtay dhinac walba u taabanaysa, waxna ma aysan dhaafin baan dhihi karaa. Soomaaliduna waa tan tiraahda abkaa iyo awowga ninkii yaqaana ayaa lafahaaga astura. yacni markuu qofku ku garanayo oo waa in hebel ku leeyahay dee wuu ku yaqaan waxaad gashiyo waxaad goyso iyo reerkiina iyo waxay yihiin. laakiin qofan ku garanayn markaad tiraahdo reer hebel baan ahaa ama in hebel baa lay dhahaa, hadday rabto way sheeganaysaa buu ku leeyahay. ileen waxa way Soomaali baan nahay waa isnaqaanahay. marka dhibaatadan iyo bahdilkan iyo aflagaadada iyo yasitaanka iyo cunsurinimada dadka Soomaalida ku dhex jirta waxa deer bilowday ma ahan, oo wax qarniyaal soo socday. waa wax dadka Soomaaliyeed dad ka mid ah lagu dhibaateeyo oo lagu bahdilo. run ahaantii wax ka jiraan aysan jirin oo daakun ah markii xaqiiqda laga hadlo. aakhiro qof walba camalkiisu la tagay ilaa agtiisana qofka ugu cabsida badan baa maaragtay ugu karaamo badan adduunkana. dadka Soomaalidu ay beenta ku yasaayaan oo beenta ay bahdilayaan oo iyaguna sidii ma garanaysaa maalin walba loo yasaayo loo caayayo loo aflagaadeynahay runta u maleeyo u nuglaaday. ilaan maalin walba boog haddii intay kugu taal lagu danqiyo dhaawac bay ku sii noqonaysaa. waxa weeyaan arintaas waa arin aan waxba ka jirin, waa arin fool xumo. hadaba ay u runtayd muddo inay dadku sidii waagaas ay ahaayeen xataa hadda dhaamaan haddana weli way taagan tahay. ilaahay xaqa ha na tuso oo Soomaali boggeeda burcada isku mariyo oo isku soo dumo. laakiin run ahaantii arintaas markay ugu soo dhacday aad bay ii taabatay. waqtiga aniga la iiga sheekeynayna waqti aan xataa anigu yaraabay ahayd. laakiin yacni waxba marbay kugu soo dhacaan. waxay igula soo dhacday arrimo badan oo aan arkay bay igula soo dhacday inaan arintan ka sheekeeyo. marka idinkana waxaan idinka codsanayaa gabdhahaas walaalaha oo tii iga sheekaysay iyo tii ay ku dhacday iyo tii dhashay tan iga sheekaysay dhammaantood way dhinteen. ilaahay jannatul firdaws al-a'laa allaha wada mariyo oo allaha wada geeyo abaalkoodana allah ka dhigo. Soomaaliya iyo sitaanka iyo geesgelintana la iska daayo. laakiin run ahaantii aniga waxay soo jiitay inta yaroo tixda ah oo ay ka tirisay wixii